Waxaanu ka hadlaynaa 5 caado oo xun oo waqtigaaga khasaarinaya. Haddaba waxaan kuu sheegayaa 5tan caado inaad si maalinle ah aad u samaysid, saameynna ay ku leedahay noloshaada, oo weliba saameyn aan wanaagsanayn. Haddaba waxaan kuu sheegayaa 5tan caado inaad iska ilaaliso, waayo waqtigaaga way khasaarinayaan ama way kaa dilayaan. Lambarka 1: ka walwalidda wixii la soo dhaafay. Haddii mar walba aad ka walwasho wixii la soo dhaafay, run ahaantii waa wax aad u xun. Mararka qaar waxaa dhacda inay dadka qaar ka walwalaan waxyaabaha dadka kale ay ka aaminsan yihiin ama waxyaabo horey u dhacay oo kale. Haddaba ha isku mashquulinin wixii la soo dhaafay ee mar walba horey uga soco. Lambarka 2: isticmaalidda social media si xad dhaaf ah. Run ahaantii waa caado aad u xun oo waqtigaaga kaa dilaysa. Haddii mar walba aad si xad dhaaf ah u isticmaasho social media, goob walba aad joogtid, shaqo walba aad qaban lahayd way kaa hor istaagi doontaa. Haddaba caadooyinka ugu xun ee Soomaalida aad u saameeyay waxaa ka mid ah inay aad u isticmaalaan social media oo daqiiqad walba ay open gareynayaan Facebook, Instagram, Twitter-ka. Haddaba waxaasoo dhan wax faa'iido ah kuma hayaan. Mulkiilaha Facebook ayaa hadda ka hor wuxuu yidhi, wax waqtiga uma hayo oo aan ku isticmaalo aaladda Facebook. Hadda la soco aaladda Facebook inuu isagu leeyahay. Haddaba adiga ayaan lagu mashquulinin, adiga ayaan waqtiga lagaa dilin, ee shaqooyinkaaga iyo danahaaga iska raaco. Lambarka 3: joogteynta ama la qabsiga ciyaaridda geemamka ama waxyaabaha la isku madadaaliyo. Run ahaantii dad badan oo waxaa jira waqtigooda ku lumiya inay PlayStation ama waxyaabo kale inay ciyaaraan. Haddaba ogow, waqtigaaga waxaasoo dhan way kaa dilayaan. Laguma talagelin inaad ciyaarto geemka adigoo ku yaalaan howlo badan. Waxaa loogu talagalay mar aad firaaqo tahay ama aad jawi iska qaadanaysid. Haddaba waqtigaaga ka faa'iidayso oo marna ha ku khasaarinin game iyo bombale inaad ku ciyaarto. Lambarka 4: isku dayga inaad qof kale fikirkiisa inaad beddesho. Run ahaantii waa midda ugu badan ee waqti aan ku dhumino. Marna waqti ha ku dhumin inaad qof kale fikirkiisa inaad beddesho. Suurtagal maaha in fikirkaaga la beddelo ama qof kale inaad fikirkiisa aad beddesho. Haddaba marna waqtiga ha ku khasaarinin oo ha ku murmin qof kale inaad fikirkiisa aad beddeshid. Markuu kaala hadlo arrinkaas, soo dhawow dheh, ama sida aad u fahansan tahay ugu sheeg. Waxba ha ku khasaarin waqtigaaga 1 saac 2 saac, waxba ha la doodin. U soo gaabi barnaamijka oo dhan, una sheeg inay isaga saa la tahay. Lambarka 5: aadidda meelo aad dan ka lahayn. Badanaa waa la iska ilaaliyaa inaad noqotid qof bilaa qorshe ah oo waqtigiisa ku dhumiya bilaa qorshe. Marna ha isku dayin inaad aado meelo aad wax dana ama ujeedda aadan ka lahayn. Mar walba focus ka saar meeshii aad dan ka leedahay ama meeshii aad wax aad ka qabsanayso. Dad badan oo waxaa jira markay gurigooda ka baxayaan ama ay banaanka u baxayaan bilaa dan ku baxa oo bilaa qorshe ku baxa. Ha ku bixin bilaa qorshe, waqtigaaga ka faa'iidayso. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Waxaan filayaa inaad wax badan ka faa'iiday oo ka mid ah caadooyinka xun ee waqtigaaga khasaarinaya. Haddaba 2 caado oo kale aan kuu sheego oo waqtigaaga khasaarin kara. Waxaa ka mid ah inaad akhriso buug aad neceb tahay ama aadan ka helin. Sababtoo ah wax aadan ka helin oo aadan niyad u haynin marna waqtigaaga ku khasaarin. Midda labaad, waqti xad dhaaf ah ama waqti aad u badan ha ku bixin daawashada TV-yada ama screen-ka ama wixii markaa aad daawanayso. Ogow, sidoo kale waa caado xun inaad TV-ga aad mar walba aad daawato, sidoo kalena maskaxdaada wax yeeli karta. Maxaad nooga haysataa inaad nagu soo biirto oo aad subscribe noo saarto, waayo wax badan ayaan kuu faa'iidin doonaa, wax badan oo ku saabsan noloshaadana wax badan ka beddeli doona. Mahadsanid.